دولة تركيا ayaa gacanta ku dhigtay dadkii ka dambeeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Istanbul. Cabdi Fataax Xasan Durdur ayaa inoo faahfaahinaya qodobka. booliiska Turkiga ayaa xiray 22 qof oo lagu eedeynayo in ay ku lug leeyihiin qaraxyadii ka dhacay bartamaha Istanbul ee dhaliyay ugu yaraan dhimashada 8 qof iyo dhaawaca 81 kale sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska dalka Turkiga. wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylu ayaa qaraxaasi ku eedeeyay xisbiga la mamnuucay ee Kurdistan Workers Party ee PKK wuxuuna intaa ku daray in la hayo qof in muddo ah ku sugnaa goobtii la dhigay qaraxaasi. ciidamada booliiska ee dalka Turkiga oo howlgal qorsheysan ay sameeyeen ayaa u suurgashay in ay soo qabtaan gabar loo maleynayo inay ka dambeysay qaraxa taa oo qabatay kaamirada qarsoon ee CC camera. gabadha ayaa muuqaal laga arkay kaamirada cadeynayay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay si degdeg ah uga carartay ka hor intuusan qaraxa dhicin kadibna dharkii ay sidatay iska bedeshay. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa axadii ku tilmaamay qaraxaasi mid khiyaano ah oo salka ku haya fal argagixisnimo. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi oo ka dhacay wado mashquul badan oo ku taala magaalada ugu weyn dalka Turkiga ee Istanbul.